السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقول فرح سناي وإلهي مهدية إن المدبر وصلنا دير على كذب يسقون منه الكن يكون يدا أو مال تابل أو أهاي بشي فبراير لما كوريا سعالي توركي إن مانت يديون اسمه كورناي وأوجه كورناي وحملة أي مكان هاي معلمين إلا تابنا أي كورناي وأي على عين سير سدح كل معلم تابنا إنه وهدول معلم كبا إنه تابنا بقول أرضي أنت عيد الكل قاضي مجرنا أيوه وبقول كأرضي صوب حيرة أي نقول أيام من ولما قيد علمي كبير تختار iyo macallin iyo hogaamiye iyo dhaqaalayahan inaga oo halkaa aada moodo inaynu shinidii fili ku ridno dhulka oo aynoo baxday oo miraheedu kordhayaan inaynu maantana ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay mahadin aada iyo aada noogu faraxsanay waxaan doonayaa inaan maanta ku dheeraanin arrinta koliyadda waayo labadii wasiirkii iyo agaasimihii iyo hormarkii iyo gabadhii baa ka hadlay tacliintaa waanu ka hadlay laakiin waxaynu isxusuusinaynaa halkan maalintii aan ka hadlay february hadal dheer oo u badnaa hanka iyo waxaynu ka higsanaa kuliyadden iyo dhibaatooyinkiina hor yaalay oo xil inoo yaalla ah ayaynu ka hadlay waxaa laga yaabaa waxyaalay maanta aynu isxusuusinay inay u baahan yihiin muddo dheer in lagu soco waxaynu ka hadalnay oo hadalkayga maalintaan ka bilaabay maalintaa waxaan soo maray dugsiga dhexe hoose ee qudhacdheer waxaan ka yaabay ooan idla wadaagay miiska ardayda u yaalay oo ahaa mid aada looxaan ah oo miis qaaliya ahayd oon u dhib badnayn samayntiisu waxaa ku qoray waxaa bixiyey dowlad heblaayo waxaa bixiyey dowlad heblaayo waxaa bixiyey inta waan ila wadaag waxaa waa imaanay ceeb lagu hay mijaale waynu samayn karaa waxaanta inoo samaysee masaabirna waynu haysanaa hawshaa miyayna dhamayn karin qodobo badan baynu ka hadlay oo ah haddaynu wixayna wada qabsanay inaynu horumarayno waxaa leeyahay maanta muddada aynu joognay markaynu waxay sugaynay si oo dareenkaa qof walba ka duulayo tallaabadii koowaad baynu qaadnay waxaana inoo haray hawlad badan oo kale oo aan weli dhadhaweyn inaynu xalino bini-aadmiguna kolba tallaabadii qaaday waa inuu isku bogaadiyaa oo uu isdhiirigeliyaa oo mustaqbalka higsadaa oo aanu calaacal iyo kolba wixii qaldabayn ku daalay muddada aynu ka soo wareegnay aasaaskiya maanta anigu waxay la tahay haddaynu 3 kun oo macallin tababaray 3 kun oo kale ay ku xigayaan haddaynu jaamacaddii dhisnay haddaynu imika maanta axriyayno librarygii iyo guryihii macallimiintu seexanayeen iyo fasaladii 10 ku darro muddadu ba-ay tahay 2 sano iyo waxya anigu waxaan isleeyahay itaalkeena aynu ognahay dhibaatooyinkii naga hor yimid kooxdu ka mid ahaa iyo abaar iyo hawlihii kala jira ay jiraan iyadoo ilaahay sagsan abaarin naga jabiyey hase yeeshee kuwada rigooda inoo taalo waxaan filayaa oo leeyahay qaran ahaan iyo kuliyad ahaan iyo wasaarad ahaanba tallaabo weyn baa qaadaniyo dalbee hambalyo macallimiinta waa la sharxay kuwa dheerayn maayo kuwa maanta qaranjabaya hambalyo kuwa kusoo jirana waa soo dhaweynaynaa ereygiinayna wax ka badan oran mayno horaa af walba loogu geliyey luqada adduunka oo dhan oo macallinku waa shamcad oranaysa iftiimaysa isaga dadku waxuu iftiimiyaa macallinku wuu gutaa waa luqada isu dhacsay caalamka oo dhan af china af carabi af ingiriisi caalamka o dhan wuu soo ogolyahay dadkana in yar oo ilaahay ku hanuuniyey oo kartida ayuu sameeyey waxbarashada maanta tallaabooyinka ay qaaday wasaaraddu ee ugu mudan tahay hawlgelinta shaqo qaran maalintaa waxaan ka warwareynay macallin la-aanta ka taagan dalka
maanta waxaynu haynaa ardaydii shaqo qaran oo tuulo walba si volunteering ah oo weliba mutadawacnimo ah oo weliba iyagu istiraayo ku kalsoon markooda waxu qabanayaan ay joogaan inay tuulo walba gaareen waynu wadaynaa shaqo qaran ilaa wasaaradaha iyo hay-adaha dawladdu ay helaan oo xukumaan oo ay hogaamiyaan dhalinyaro u carbisan midnimada tarjacaylka iyo horumarka oo ku soo sarfasa waxaan filaynaa tababarada halkan lagu qaato waxaa weyn in macalinka la siiyo laysan macalino ama shahaadaha macalino oo ah macalinku miyir qaba dembi miyir qaba aqoonteeda ma leeyahay dabeecadu carurtu ku barbaariya ma leeyahay dad xilkiisu siduu yahay caafimaadkiisu siduu yahay intaaba in la baaraa loo baahanya macalinka oo intaaba lasoo hubiyo oo ubadka maskaxdooda ku shubo macalinku yahay macalin miyir qaba muslim ah dhaqan leh wax garanayo ka aqoon badan dal iyo dadba wuxuu kordhinaya taasina waa tallaabo horumar ah ma aha in macalinta la cadibaayo laakiin macalinku waa barbaariyo ubadkeeda iyo mustaqbalkeeda oo dee isagina waa la hubiyaa eanu waliba tabacsheer qaadan laba waxaa ka mida imtixaanka lagu qiimeynayo qof waliba markuu ka gudbaayo marxalad haddaad sanadkii afraad gudbayso waa in lagaa qaada imtixaanka ma barata wixii oo dugsigii iyo wasaaraddii dib loo hubiyaa ardayga wixii ilaakusa waxbaranaya ma hubin markuu secondariga ka wareegayo waa in la hubiyaa markuu jaamacada kasoo baxay digriigii saxmayo wixii ma qaata professional test waa in qofkii wixii mabarta aanu suginaa si ay u helo mustaqbalka dad aqoonta lagu magacaabay shahaada sitaan ay isu qalmaan oo adduunka nin aqoon waa maanta wax qabanaya aynu ku tartano caalamiyan dadkeeda waxbartay iyana waa tallaabo wanaagsan oo bilowa dhammaan waxaan ku hambalyeynayaa dadka wasaaradda ka shaqeeya dhammaantoodba magac kasta oo leeyihiin iyo bahda waxbarashada oo dhan ilaa ka macaamida geedka wax ugu hoos dhigaya ka dugsiga brafidka haya kuwa dawladda bahda waxbarashadu waxaynu qiraynaa iyagana ka sugaynaa inay yihiin halka dalku ka dhismaayo mustaqbalka ee mustaqbalkeeda ku jiro taana waxba ka akrimayno wax ka jeli karto mooyaan waxaan aada ugu faraxsanayaa gabadha macalimada ah ee ka dhigta dugsiga dhexe hoose ee dad alaalo oo iyana iyo kuwa lamusheegay u yimaadinaya qofka horse dadkooda gudbiyaan aada iyo aad baan u hambalyeynaya waan soo dhaweynaya